boqor cismaan aw maxamuud adigu ma waxaad meesha u soo fadhiisatay oo waraysiga kaga aqbashay inaad madaxweynaha qaranka halkan ka weerarto anaga hargeysa joognay adigu waad ka maqnayday muuse hadduu adeerka ayaa abtiga baan horta kala xishoon oo si fiican waraysiga xabad baad haysaa adigu awoodan aad ku hanjabaysa iyo ciidamadan aad haysataa iyo hubkan faraha badan dalka ku qabsanaysa halkay ku yaalaan halkaad ka dagaalantay muuse dal buu qabsaday xoreeyay dawladu u babacdhigay halkaad ka soo dagaalantay adigu ha degdegin aniga si siyaasiyiinta ay waraysanay boqor baad waraysanay your highness horta marka hore maxamed oo siciid $20 million buu ku investigay doorashadiisa markuu soo baxay wuxuu keebelka hadaanad sheeriga sin dalka ka shaqaysan weyse yaa kaaga sheekay adigu waxaan yaa ku sheegay meel ay ku cadaatay maxamed oo siciid yaad ka hisaabkiisa u sheegay waxaan ogahay tijaartii oo dhan nin aanu baad weydiin dahabshiil buu weydiiyey teleson buu weydiiyey barkhadaad aragtayba carra wuxuu beeyada $10 baa ka soo baxay inankayga sheer ka siiyo aniga sheerigaasi waxa way waad ogtahay boloodhadii boloorku soo arkaba boqor cismaan abti sugaan ku dhameeyay intaas dhigayso $100 buu siyaa wayna maday wallahi $500 baan u hayaa $500 baan u hayaa askariga mushaarkiisa hadaad ka keentay lacagtaas war shalay baa fadhideen oo adeerkaa fadhiyey oo kii ka horreeyey fadhiyey oo mid walba loo kordhiyey maxaa isaga u diiday ka amaan helaysa salaadiintii ka amaan helayn cid ka amaan helaysa ma jirto maxamed saad barruka awood badan yahay bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii la hadal horyaal barnaamijka toddobaadkan waxa uu idinka imanayaa wadanka Ethiopia gaar ahaan magaalada Addis Ababa halkaas ayaa maanta aanu barnaamijkan uu idinkaga imanayaa waxaana marti noogu ah oo aanu iminka horta kamarada horteeda fadhiya boqor cismaan aw maxamuud oo ku magac dheer buurmadow boqor cismaan muddooyinka u dambeeyay dalka uu ka maqnaa boqor cismaan marka u horeysa ku soo dhawow barnaamijka la hadal horyaal TV ee horyaal TV ka baxa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana ku dhawahay horyaal TV boqor cismaan aw maxamuud in muddo dalka baad ka soo maqnayd waxaa lagu ogaa adigoo Turkiga iyo meelaha jooga mar Muqdisho jooga mar Turkiga jooga maanta waxaynu ku kulannay Addis Ababa maxalkan aad joogtay mise safar baad ahayd muxuu yahay socdaalka halkan ku joogtay ujeedadiisu horta dalka talaan kaga maqanahay ee kagama maqni wax kale waad ogeydo gobollada bariga dhibaata ka dhacday dagaala ka dhacay muuse bixi wuxuu weeyaan iyo dawladdiisu waxay tahli kari weyday inay nabadayn ka samayso waad ogeydo baryootan iyo lacag inay bixiso oo nabad ku doonto ayay gaadhi caqabad weynna way nagu ahayd heshiisiinta iyo qaabkii aan wax wadnay ilaa markii dambe ay isdhiibtay oo faraha nooga qaaday inaanu anagu dadkii nabadayno dadkayga waayeelka nabadii markaanu ku guulaysanoo dhammaysanay weliba wax alla wixii hub ahaa ee ciidamadiisuna waxba ka qaban kari waayeen ee dalka lagu haystay bari oo dhan awoodda kala wareegay ciidanku ku dhex dhimanayay ceelafweyn ku dhimanayay darar weyne ku dhimanayay meel walba ku dhimanayay ee faraha ka baxay awood kale markuu tahli waayay inuu lacag u keeno iyadoo haddii aan la leeyahay nabadda lacag ku doono odayaal diro wana luqadda quru yaqaanaa waxa weeyaan ciidan urursan oo iska celinaya madaxweynaha dalka jooga tuwiir luqaddu yaqaan boqor cismaan su'aasha ku weydiiyay waxay halkan maxaad ka qabanaysaa isug waxaan ku yiri waxaan ka qabanayaa ku sheegay waan wadaa abti ha degdegin aniga si siyaasiyiinta ay waraysanay boqor baad waraysanay your highness horta marka hore dheh waxa weeyaan arrintu halkaa markay dhacday qaabku dalka u hogaaminayay iyo qaabku u shaqaynayayna aanu isku afgaran weynay waxay noqotay markii meeshii aanu nabad ka dhignay ciidamadii hubkii lagu wareejiyey dadkii lagu wareejiyey beel ahaan iyo Somaliland waxgaradkeedii markaanu is aragnay khaas ahaan salaadiintii habar jeclo war ninka kan dadku ha kula arkay anigu waxaan leeyahay arkay hogaamintiisa qaabkay u socotay markuu ganacsatadii baad ka qaaday nin walba yidhi haddaanad aniga inamadayda sheeraysiin ganacsi ma soconayo madaxtooyada waynu la doonay ay noqotay nin aan ku joogayn oo doonayo dadkii baad ka qaadayo xadgudub siyaasadeed oo fara badan uu samaynayo dimuqraadiyaddii uu iska laabay iyo doorashooyinkii anigu markaan ka horin wax la yidhi ummaddu ha bislaato ha kula aragtay iskaga baxay dagaal hor leeyahay inay gelini horta dalka saan kaga maqnaa aan ku joogay taas ahayd laakiinse hadda ka fursan mayso inaan gudaha galno oo dadka wax la qabno boqor cismaan aw maxamuud eedo culus baad jeedisay madaxweynihii qarankaad eedaysay
dad buu baad ka qaaday baa tidhi madaxweynuhu ma nin gaangiistar ahoo dariiq taaganoo dadka baad ka gurayaba waa madaxweynihii qaranka waa head of state sidee hadalladaas kaaga soo bixi karaan adigoo boqora anugu hadal aanan macnayn karayn ma idhaahdo hore madaxweynaha dib jir baan ugu sheegay waa lay weydiiyey waan macneeyey inuu dib jir yahay maxaad ku macnaysay waxaan ku macneeyey qofku marka hore aad isqabataan wuxuu koonaya maxkamadda degmada ina geeya ka gobolkaa la iska tagaa ambiil baa la isla qaataa rafcaankaa la isla tagaa subriinka horkaa la isla tagaa markuu diido geedka iyo odayaasha ina geeya leedahay markuu intaba diiday yaa dad waxayna geeyay waa dib jir weeye waa dhaqanka dib jirada anugu maalinta hore inuu dib jir yahay baan ku sifeeyey maantana waxaan kuu sheegayaa maantana sifaha uu ku sugan yahay aan kuu sheegayaa qofka saqajaankaasoo ma taqaanid waxa ka xun wax la yidhahdo maqajaan muxuu yahay maqashaan saqajaanku markuu dhergo waxbuu ka tagaa maqajaanku waxa weeyaan wuu xaabsadaa wax walba xaabsadaa qodha ay xarada anigu wallaahi bilaahi waan ku dhaaranayaa madaxnimo muuse uma diidani inuu noqdana uma diidani waaba la doonay gef baan ku galay waxa weeyaan waxaan ka soo qaaday maxamed ow siciid $20 milyan buu ku infisgariyey doorashadiisa markuu soo baxay wuxuu keebelka haddaanad sheeriga siin dalka ka shaqaysan maysid yaa kaaga sheekeeyey adigu waxaan yaa kuu sheegay meel ay ku cadaatay maxamed ow siciid miyaad ka haysaa afkiisa u sheeg weydiiyey waxaan ogahay tijaartii oo dhan nin aanu baad weydiin dahabshiil buu weydiiyey teleson buu weydiiyey barkhadaad aragtayba carra wuxuu yidhi beeyada $10 baa ka soo baxay inankayga sheer ka siiyo aniga sheerigaas waxa wey waad ogtahay baloodhadii baloorku soo arkaba boqor cismaan abti sugaan ku dhameeyay intaasi dhigayso baloodhada wada agtay buurta kala jeexan oo walgii biixi yeelan oo cabdi dabeer yeelan haadhe ummad dhan oo tolkiisa oo maatadii aba nin walba xabad la dhaco baloorkii waad aragtaa rag dhan oo tola oo 9 qarni yaalay hargeysa kowde maxamed xasan dalab iyo muuse bixi halkay dhul hargeysa iskaga soo gaadhaan ya waxa way beertiis maanta inuu geel ku xareysto oo yiraahdo hadii la baleeyo ana qaadanaya oo wasiirkiisii uu ka xishoon waayay xaaskiisii iyo sudoodiisii boqor cismaan maxamuud adigu waxaad meesha u soo fadhiisatay oo waraysiga kaga aqbashay inaad madaxweynaha qaranka halkan ka weerarto mise inaad danta Soomaaliland maslaxadeeda horumarkeeda wanaageeda nabadeynteeda hawlihii madax dhaqameednimo waxa inaad ka hadasho ujeedada doonaysa inaad waxaan eegan karayn ee aan dalka kaga maqnahay inaan ka dagaalamay inaan ka joogay waxa ka maqnay waxa ku tijaartii baad la weydiinay ninkii aan sheer bixin ganacsigiisa hadda waad soo socotaa waxay saacadayn qoraal loo qoray baad lagu weydiiyey halkaad nala wadaag may cadayn baan ku hayaa ganacsatada orado weydii nin aan baad la weydiin oo loodan inankayga yare waa ganacsada yare maxamed yare sheer hal la siiyo aan oran ama waxaas waa afkii suuqa iyo dacaayadaha iyo barbagandada iyo mucaaradku ay akhriin jireen adigu boqorkii ummadda tahay waxaan cadaan hayni waxaan ku keenaynaa beeruhu boobay tii cismaan dacas baa kamid ah gurigii axmed cali goodir dhulkii axmed cali goodir hargeysa beer sanad isagu qaaday baa ku jira suldaan siciid hadda hudheelkii hargeysa kilaab ee 50 sanadood la siiyey isagaan magdhow ka bixin oo taas ma baadba waa baad wey suldaan boqorku ma waa robeli weeyaan wax wey boqorka suldaankana meesha waa laga kareeyey dawlad baa ka kareysay iminkana dawlad baa kala noqotay waa xaqna way u leedahay xaq kale jira noqonayso qofka muwaadinka xaq uu leeyahay dawladda waa sax way la noqon kartaa sifa dawladeedu waa inay kula noqoto aanu nin doonaynin inuu qaato madaxweyne qaadanay madaxweyne ayaa anigu dalka xuquuqdiisa u simanna wax weeye muwaadinkan xaq buu leeyahay hantidii ka gashay meesha loo celiyaa 50 sanadood baa dawladda siisay hanti buu geliyay investment buu geliyay lagama qaadi karo waa in loo celiyaa hantidiisii oo in la xisaabtama laakiin ana qaadanayo sameysanayo markii halkuu ku sheegay ana qaadanaya halkee lagu sheegay qaranka u baahan oo la noqday baa leeyahay qaran wax u baahan qaranku waa madaxweynaha way wax cid dhulka doonaysa qaranka madaxweynuhu noqday anu wax fakaleera kala hadlaya hebel dhulkiisii dhulkiina xasan dalab baan kaala hadlay buurti kala jeexan baan kaala hadlay dhulkiina xasan dalab madaxtooyada laga dhisay danguud baa loo qaaday madaxtooyada laga dhisaya deyr baa lagu xidhay marka dhismeedii baa socda mashaariicdii baa la bixiyay maxaa boqor waxa akhriyaysa waa maxay hold on waxaan ku yiri magaalada Muuse Biixi isaga hadda ugu dal badan hadduu qaranka wax la jecel yahay dhulkan uu boobay ee 9 dawladood ka dhacay waxa ku yaala dhulku boobay warulkii la kala iibsan jiray nimankii Sacad Muuse baloorkii 100 kun marayay $2 lama siisan karo nin waliba xisday Muuse ka qaadaya nin lacag investment gali karaya dalkii gaaja lagu baqtiyay Soomaad garan marka waxaan yaa ku sheegay adu dalka muddo waad ka maqnay dibad joog baa tahay yaa waxaan ku sheegay xaqad waran keenta oo kii ooyay ee kii dhacay og baan dalka boqor baan ka ahay oday baan ka ahay xoogaal baan ka ahay siyaasadiisa la socdaa
waxaan kuu sheegaya anigu waxaan ku leeyahay laba arrin qoodaan kuu sheegaya maanta ninkaa madaxweyne uma diidanin somalilandna uma diidin waxay noqotay nin aan dhergaynin oo maantadaa ilaa maanta 5 sannadood dhaqaalihii dawladda iyo cashuurteedii wixii soo gelayayna qaadanaya wixii qaadaan dawladeed soo gelayayna qaadanaya ummadii baloodhadii iyo masaakiintii iyo hantidoodiina aanay baxsanahaynin saxaafadii aanay ka shaqaysan karin telefishinka maxamed ilig muxuu ku xidhnaa lagu haystay dacwad baa lagu oogay ninka maxkamadda wala maxkamad buu maray barasho sharci buu maray telefishinka sheer ka bixin bay yaa halkee laga yidhi yaa cad waxaana sheegaysa sheer baa la doonayaa adan meedhan sheer baa laga doonayaa caddayn maxaad u haysaa nin weyn baa tahay qiyaama ku sugaya aakhira su'aal lagu weydiin doona ummad baa imika ku dhageysanaysa ku qiimeynaysa maxaad caddayn u haysaa aakhira hadii la weydiinayo waxaad waraysataa ilma axmed cali goodir ilma cismaan dacas ilma xasan dalab maxamed xasan dalab soomaad garan inta caa'iladood ee 3,000 ee reer laga barakiciyay buurta kala jeexan soomaad garan waxaan ku yiri meel aan hadii aan laba leeyahay aan la qaylinayn waan ku wada sheegay ganacsatada ya tiraso markii khaati looga taagtay sheer buu ka qaatay kowdhe cidda qura diiday baada inay bixiso waa tijaartii habar jacdo dahabshiil baa diiday barkhad baa diiday ilma xarbi baa diiday inta bana wuxuu doonayaa inuu ganacsigooda xidho intii kale waxay markuu jiray wax war madaxweynaha saqajaanka waxna ka siiyay bay yiraahdo inuu walba shirbusi xogaal baan boqor cismaan aw maxamuud taa marka laga yimaado shir baa waan ku baaqday oo tiri dawlad baan ku dhisaynaa waxbaanu ayaanu kaga talinaynaa halku ku dambeeyay shirki horta Somaliland marxaladay maanta marayso shir uma baahna musabbixina shirna kaga tagi maayo media dadka ka soo qaylinayana uu ku raaxaystay habeenka telefishinka markuu qoladii reer hebel oo baryootamaysay hebel la sii daayeeyo uu ku bararaa aftaag buu ka sii qaadaa musabbix 10 inaan oo ciidan oo ururay ma xamili karo waa madaxweynihii koobaad ee kaarayaal isku wareejiya isagaan culba soo gaadhin col hartiba jaba halku kaleeska wareejiya madaxtooyada iyo waa teegad maalintii mudaharaadkii maxaa shacbiga lagu leeyahay baqdin bay ahayd shacbi aan waxba sidan oo rasaas kaare oo isku wareejiyay iyo madaxtooyada kaarayaal midna ma jira anaga hargeysa joognay adigu waad ka maqneeday muuse haduu adeerka ayaa abtiga baan horta kala xishoon oo si fiican u waraysiga qaad waaya waan garanayaa inaad damqanayso laakiin xaqiiqda lagama damqado anigu waxaan kuu sheegayaa Somaliland intaasi soo jirto war xaqiiqan maanta kuu sheegay runa horta shirkii hadda barco ka dhacaya salaadiintuna way tagi doontaa ama cadda gudaha xiro ama Suldaan Ibrahim Sulub hadharo xiniye uu leeyahay meesha ku xukumaan wallahi haday 4 inan 4 baad sheegaysaa 4 inan oo yoonisa ya nimankii birta calashan jiray yoonis haday soo galaan ya ciyaarta isaga dhiman jiray wallahi baanu isaga ku raaxaysanay isaga carruurta soo magaalada ku raaxaysanay oo nafaxshi joogay maxaa dhacaya nimankii shareer Suudaan dukaanku markuu dhaco haday doonayaan istabdeli jiray Suldaan Ibrahim wallahi inaanu xidhnaanayn ruma ku sheegaya waxaan ku sheegayaa baryada tan iyo hadii la leeyahay madaxweynuhu doorasho qabo midna ku tagmaayo muuse wuxuu ku tagayaa ciidan anu waxaan ku sheegayaa waxa halka gaarsiiyay arrinka niman siyaasiyiin qancayn nimanka xisbiyada mucaaradka ah ugu horeeyay Faysal Ali Waraabi Cirro Xirsi ragaasaanu u fadhinay marka hore in dimuqraadiyad waxun isku bedelaan nimankaasi waxay aaminsanayeen muuse in maalin wax laga dhalin karo iyo dulqaad maxaa xalka uu ku tagayaa waa maxay aad haysaado ku tagay xabad buu ku tagay da xabad xagad ku diisay yaad la dagaalamaysaa xabad wuxuu ku tagay yaa se dagaalamaya wuxuu ku tagayaa Somaliland khasaaraha waxa ka karba ku gashay Somaliland Maxamed Siyaad Barre kuma sameeynin inuu ganacsi dadka shacabka boobo kuma sameeynin inuu tijaarta u xidhxidho dhaqaale isii inuu kuma sameeyay salaadiin inuu xidhxidho kuma sameeyay saxaafad inuu xidhxidho waxa soo dhan kuma sameeyay sharing power iyo waxyaalo guud baa laga cabanayay waxaan loo adkaysan karin muuse boqor cismaan siyaad barre iyo madaxweynaha Somaliland ee doorashada ku yimi iyo nin inqilaab iyo xukun iyo awood ciidan dalka ku qabsaday ha isbarbar dhigine markii dambena dalkii iyo dadkiiba burburiyaha isbarbar dhigine ninkani doorasho ku yimi cod buu ku tagayay halka aan xabada ahayn baa lagaaga baahan yahay boqor baa tahay oo samatalis baa laga doonayaa ma haysaa samataliska ku sheegaya maanta anigu raggan iska yaacay iska riyoonaya siyaasadda la lumay aniga hadda waxaad ka soo qaadaa ragii oo leeyay Muusanaha niyad in waan qani inuu nooc yahay xadu doorto marka umada waligi saraakiisha korneelada kale inaan ciidan soo hogaaminayo wax xukuumo jirin
ninkaas shaqo uu qabtay waxa ahayd bambartii buu navigator ka ah saddexdii diyaaradeed dalka la keenay midna xabashida soo riday midna madaarka gubtay midna la fadhiisiyey weligii xafiis shaqo 10 qof muu xukumay ninka dhan inuu madaxweynaha u dooran taariikhdiisa iyo historigiisa hayna okay maanta raggii nagu khasbay ya in adeerkii maxamuud xaashi baa kamid ah maxamuud madaxweyne waa la rabay wax walba war maxaad la gashay ninka kan may ana wax kula jira waana lumiyey isagay raggii la socday muusay keeneen waxa la waxay kula jireen ma jirto 5 sano iyagoo qaylinaya dibadda nala joogay maanta ragga la xisbiyada maanta hal furo ee shirkiyada durbaanada dumarka tumay wareerinaya muddo kordhin muuse ka diyaarinaya Somaliland ma xukum ma xamili karto one day oo muuse bi xidib soo xukumo dheedkiisa loo qabtay war shalay ba fadhideen oo adeerka fadhiyay oo kii ka horeeyay fadhiyay oo mid walba loo kordhiyay maxaa isaga u diiday adeerkay nin saqajaana mu ahayn oo habraa baloodhada ku haysta mu ahayn nin tijaarta baad ka qaadaya mu ahayn hadii la balay nin hal suldaan soo xidhaya Soomaad garan adiga miyaanu ku xidhin laftirkaada aniga anagu waan isqabanay inaan isqabano siyaasad isku maanu qabanay danaan isku qabanay Soomaad garan maxaa muuse isku haysta adiga muuse personally shakhsiyan maxaa isku haysta muuse waxaan isku haynaa shacbigeygii ya ayaa mid ganacsada ah iyo mid balood dhul haysta iyo mid banaanka jooga eede waxa weeye shacbigii ba waxa weeye waa laga shaqaysan karaa muuse kursiga lagu maaysto waa laga shaqaysan karaa ma la fadhiisatay oo ma la hadashay war waxana lagaaga cabanaya oo kugu diidanahay wax ka qaba ma tiri intaad meelaha ka caytamaysa banaanka soo weerarayso dibada uga soo anjabayso dagaalada abaabulayso hay Soomaad garan ninka u dhow ee la fadhiisanaha markaad u timaado judha wuxuu reer buu kula xamanaya Soomaad garan wali qof binaadano ka xan badan ma arag wuxuu kala hadlaya hadii aan la baleeyahay hadii aan la baleeyahay inaad cid aqli dhaantay qofka inaad wuxuu sheegtaan wax ka hoosaysan waxan waa qalad tilaade weeyaan moogtay waxba uma baahni Soomaad garan anigu waxaan kula hadlin oo kula hadlin Soomaad garan qof wadadii lagala hadlayo oo dhan wuxuu ugu hagaagayaan ama wax ka maqlayaan boqor Ismaan oo Maxamuud boqor baa tahay nin mas'uul sharaf iyo karaamo leh baa tahay ummadda dooratay ummadda hogaamiyaasheeda kamid ah hogaamiyaasha dhaqanku ugu waaweynaa kamid ah wax aan ahayn aflagaado cay dagaal xabad hal la qaato hal la dagaalamo ka kacay oo xal ah oo aad maanta hayso oo doorashooyinkan iyo khilaafyadan Somaliland ka jira wax lagaga qaban karayo ma haysa ana warba ku sheegaya horta ninka madaxweynaha ee dalka loo dhiibtay waa inuu helaa cid qabata isagu dastuurkii dalkana maaha sharciyadiina maaha dalkana ma leh waa loo doortay waxaan la jooga oday awowgay oo qololaado Jibriil Tuuraayo oo digta qori jarato ceergaaba digta in loo jeeyo Siciid Caala wuxuu oran jiray qaablaawayaal dadku la yaab oran jiray waxaan la joogay ku xirsan horta waa qaablaawayaal hatta labiska iyo qiimkooda in ka dib jirka waa ka fiican wasaaraddu doonana joogo dadkaas waa dayacay Soomaad garan nimanka la jooga niman kelmad ku biirin kara niman oran kara uu la tashan karo guddi uu saaray oo warbal arrinka ka soo taliya kowde nin waalan oo robbery maskaxdiisa dalku kuma shaqayn karo waxaan doonayaa inaan ku sheega abti hal qodob ma ku sheegaya muusad waqtigii uu ka dhamaaday wallahi baanu boqorna ku noqonayn Somaliland ku jireen mid ma ku sheegaya Somaliland way burburaysaa cid qaban karaysana ma jirto reer qabanayaan ma jiro saaxiib qabanay saaxiib burburinay laana wax weyn nin ma aragnayso sidoo burburinaya warnin aan dadkii ganacsigeena ka amaan helayn ummadiina ka amaan helayn saxaafadii ka amaan helayn salaadiintii ka amaan helayn cid ka amaan helaysa ma jirto maxamed saad baruka awood badan yahay waxaan ku yiri cid uu qabsoomaya aanay jirin maantada cid kasta oo barya oo tagtay ganacsiga u dambeysay maanta aad arkaysa telefishinka qaranka laga caayayo ee u dambeysay dalka u naxaysay waxaan ku sheegayaa waxay noqonaysaa intii maxamed siyaad barre hadii lala dagaalamay boqolkiiba 99 waxaan u sameeyay ninkani baa ka xun Soomaad garan maxamed siyaad barre ummadda dhan buu xasuuqay magaalooyin dhan buu baabiyay 200 oo kun oo qof dadka badan baa ayuu qudha ka jaray mataasad ku dheerinaysa waxaan ku yiri waxa weeyaan dibasho hadda soo socotaa taas aad doonaysaa dad xasuuqa hadda ku socdaa wadadii haya xasuuqa maantii dhawad wixii dadkii la leynayay marash bay ahaayeen ay xabaalaa la geynayay wasiirada ay aaska tagi kari waayeen marash bay hadduu bilaaban wadadii ku socdaa hadduna bilaabaya wadna arki doona wiiga ka soo socda haddii aanu baarlamanku tallaabo qaadin wallahi anaa ku sheegay ya booramay ka dhici
bari bay ka dhici hargeysay ka dhici ciduu xukumi doona wallahi inaanu geed deeblana khudaarta beeraha dhaca cunay ku cunayn baloydhadu cunana ku seexanayn hargeysana wallahi cid ku yaa dagaalamaya waa yaa dadkan abaabulanaya ciidamadan hubaysanaya aad ogtahay dagaalamaya halkay joogaan maxamed siyaad barre miigaga iyo diyaaradaha haysta kani waxba maba haystee yaa la dagaalamay shacabaa la dagaalamay qaawan yaa la dagaalamay shacabka annagaa hogaaminayna waxaan kuu sheegayaa muddada muuse inaanu sii xukumi doonin muddadiisa uu haysto ka bacdi xal la gaari maayo intaa muuse sifa sharciya buu ku yimi sifa sharciyana uu kaga tegaya kursigana isku dhejin maayo boqorna ma noqon karo somalilandna systemkeeda dowladnimo sidaa uma samaysna inta ka horeysa wixii qaldan in la saxo oo la hagaajiyo maxaa talo uga geysa wey wuxuu ku hajabaya soo ciidamo maaha maya $100 buu siyaa wayna madeed wallahi 500 baanu hayaa 500 baanu hayaa askarigii mushaarkiisa xagaad ka keentay lacagtaas xagaan ka keenay ya cirka aan ka keeno 500 baanu hayaa askarigii kowdhe ciidamada tan saddexda boqor cismaan dhawaan muqdishoad joogtay dad badan baa ilaahay boqor cismaan qandaraas buu soo qaatay somaliland lagu burburinayo ma taasaa run hawshaasaad fulinaysa anuu ma burburinayo ummaddii waa firxad waxna xamar bay u carartay waxna dabaday joogtaa waxna jeelal bay ku jirtaa soomaad garan ummaddu inay iska shaqaysato oo iska baayac mushtarayso oo doorasha dhacdo nidaam yimaadaan la doonayay waa la waayay waad arkaysaa xisbiyada hadda wuxuu doonaya inuu xirsi xidho faysal cali waraabe xidho ciro xidho dimuqraadiyaddii ma jirto adeer ma boqor reer aanu dooranay baa marka adeer muxuu yahay bal ii sheeg adigu ii macne muxuu yahay doorashana ma ogola kowdhi xisbiyadana waa baabiinaya muddadoodina waa dhammaatay aniga taydu ma dhammaan karto oo waqtigayga ma dhammaan kartay waa lay kordhinaya ya boqor cismaan oo maxamuud mise caruurta yareer ee commissionka uu keensaday shalayta u khudbadaynaya lahaa saddexdaa xisbuun baa soo saaraysa saas madaxa saa lahaa ina tiyareeda ninka wanaagsan ina quulle maahe inta kale madaxay ruxaysa ilaahay goobi soomaad garan xataa ma odhanayaan xataa moogta war iskiijiyo ya saasay lahaayeen samca wadaacan saasay madaxa u ruxayeen soomaad garan marka adeer waxa bal ii macne boqor commissionkaasi waa hay'ad garsoor dhexdhexaada dhaar baa la mariyey kitaab baa gacanta loo saaray cadaalad inay ku shaqeeyaan bay ku dhaarteen ummadda horteeda taa iyaga iyo allahooda waxay khaldaan iyagaynu u dayn doonaa iyo waqtigeeda marka la gaadho inta ka horeysa iminka xal ma u haysaa boqor baa tahay inta dagaal ooganimadan iyo tan kale dhigato yara dhigato talo oday maxaad haysaa anigu war baan kuu sheegaya talada oday somaliland oo dhan baa siisay anaa siiyo ugu horreeyey waan la taliyey maalintii ugu horreysay inaad rogacaliya dimuqraadiyad sameeyo cadaalad sameeyo doorashada qaba baan ku yiri weliba waan kuu codaynaya anaa kuu codaynaya telefishankan ka hadlay waa degeysatay soomaad garan waxaan ku yiri cid walba muuse uu diiday salaadiinta hogaaminaysa run baan kuu sheegayaa salaadiinta rumaysa kuwa cid ugu xigay ya waraa madan cidnaba ka xishoonayn soomaad garan cidnaba ka xishoonayn suldaan xasan suldaan cabdillaahi ninka ka xishoon waaye ya reer axmed cabdalle sarkaalkii quray ahay lahayn gacantiisa ku baxay markii aysan nabta joognay maantana suldaankii guud buu doonaya inuu joogto ama xidho cidda ugu horeysa xabadda ku ruxfaysa wallahi waa kuwa ugu xiga nin aan ooyeyn oon baloorkiisii qaadan dhulkiisii qaadan ma jiro ma madaxweynaha kaas mise waa xabad baad haysaaye adigu awooddan aad ku hanjabaysa iyo ciidamadan aad haysataa iyo hubkan faraha badan aad dalka ku qabsanaysa halkay ku yaallaan anigu muuse waana ka geysanahay run baan kuu sheegayaa halkaad ka dagaalantay muuse dal buu qabsaday xoreeyey dowladuhu u babacdhigee halkaad ka soo dagaalantay adigu bari baa anaa xoreysto joogo waa la yaqaana xamilkaan fadhiyey soo maad garan muuse dagaal weligii anigu horaantaan gelaya markaan dagaalka gelaye se muuse kaare isku wareejin maayo soomaad garan run baan kuu sheegayaa haddii meesha xalle ma yaalo baarlamankaas un baanu sugayn hadda laba way gudahood haddii baarlamanku ururadii siyaasaddu way socdeen maanta maxamuud xaashi xisbi ururkii kaa xisbigiisii sugweynaysi buu qabsaday kuwa kalena way qabsadeen dhabbihii doorashaday u haysteen oo cagta saareen adiguna waxaanaad ka sheekaynaysaa sidee xaaladdu noqonaysaa war baan kuu sheegaya maxamuud xaashi aniga waa in adeerkay ilaa intaa uu siyaasadda ku jireen ninkii taageerayana meelo khaldanna maxamuud xaashi aan tixgelinayo inaanu raacay muuse doorashadiisii baa ka mid ahay maanta run baan ku sheegay maxamuud xaashi 100 jeer buu ila anbaday maanta ila anban maayo waxaan taagnay war muuse maxaad la gashay xisbigaaga ma soo saaraya maxay heshiis ku tihiin isagoo aad kordhinaysaa oo rag baad ku laynaysaa maxaad aad u garantii ka haysataa waa mada waxba kama haysto al'aanka muqaabilin ciyaal yaryar buu hadba ugu soo diray oo yaada soo mashquuliya
tuug buu yaqaanaa tuugii matuugaasaan wax u dhiibaabay markaasaan xisbi ku wareejiyaa soomaad garan maxamuud xaashi waxaan kuu sheegayaa hadduu maanta doorashada madaxweynaha iyo laysi saarayo iyo xisbiyada maxamuud ka tartamaya yahay maxamuud waan dooranaya anigu cid baan ku sheegay isagaan dooranaya isagaan oo nafya maal waxaan haddii laakiin hadday maxamed kaayna waxaan dad durbaanka tumaya annagaa odayaal u ah maxamuud xaashi hadday ujeedadiisu tahay muusiha loo kordhiyo oo aan sharciyad ogolayn ya oo haddii aan laba leeyahay 5 sanadood baan dalka cid la talisay iyo cid sharciyad u ixtiraamay iyo cid ka nabad gashay aanay jirin ay tahay bil loo kordhiyo uu maxamuud ku shaqeynaya wadada waad arki doontaa laba wiil ka bacdi shacabku anaguna raaci doona anaga aan hogaamin doona maxamuud meel uma wado soomaad garan wax uu haddii muuse xisbigii boqor haddii xisbigiiba laydinku wareejiyo maxamed kaahin lagu wareejiyo murashaxnimadii madaxweynaha la siiyo ma dhisaysaa ma taageeraysaa war baan kuu sheegaya abti 5 sanadood baa waxa la wixii labada reer heshiiska ku ahaayeen iyo wixii talku ula yimi iyo wixii jamhuuriyaddu ula timi ninka maalin qura in waxyeelo laga kari waayo maanta hadduu aqbalba yeelaysa adigu maanta hadduu madaxweynenimada ku soo daro qof kulmiye naga raacaya mana qaadan inuu nijaasoobay kaas xisbigaas wax dhintay weey ma xisbiyada mucaaradkan dhisaynaa dagaalkay galaan iyagaan la gelaynaa wadaday maraan iyagaan la maraynaa haddaygu doorka qaadan waayaan anaga hogaaminta qaadanayna oo dalka badbaadinayna waan rubaan ku sheegay inaan halka fadhiyana iyagaan ku ixtiraamayna inay soo qoostaan imaka ma soo qoosteen dabcan way soo qoosteen wiigan oo dhan waxay leeyihiin you are right biili ismaan maxamuud dalkii ma tegaysid goor ma tegaysaa dalkii waxaan tegayaa maalinta baarlamanka go'aan ama uu soo saaro waayo ama qoosto ballan waxaan kuugu qaadayaa inaan dalka intaan galo anigoo taxtaxaashinayo aanu muusana awood lahayn waxna samayn karin dowladnimadii Soomaaliland iyo ciidamadeedii iyo awoodeedii iyo xukunkeedii ma waxba kama jiraan baad ka soo qaadaysaa xagaad ka maraysaa waxaan kuu sheegay haddii maanta muuse waxaynu ka kalanay sidii wax laysula wareegi jiray hal qabto Soomaha anaaba kuu sheegay Soomaaliland way burburaysaa madaxweyne dambe Soomaaliland oo Soomaaliland wada xukumaana ma dhacayo Soomaaliland maxaa burburaya Soomaaliland way ka weyn tahay qarannimadeedu iyo awoodeedu way dhaaftay maalin in boqor meel ka soo hanjaboona way burburaysaa awoodaad haysad ku burburinaysaa waa maxay adeer waxaan kuu sheegayaa mid baan kuu sheegayaa maalintii hal reer la isugu tagi jiray maanta maaha ardaagiisa hoosaa maanta wax ka xoreeya muuse u baahan hadday dimuqraadiyaddu baxdana cirana fadhiisan maayo faysal fadhiisan maayo muusana fadhiisan maayo muuse doorasho iyo cod baynu ku ridaynaaye oo uu ku tegayaay ma taasuu sugtaan ummadda taa u diyaarsan 13 November muuse ma yeeli doono inuu wadada uu marayo ee uu ku adkaysanayo uu leeyahay saddex xisbi baan meesha ka saaraya labada xisbi kala ka saaraya aniguna waa lii kordhinaya wadada inuu docno uga bayro waa habeenkii xalay hawtigi in ciidiyaasha inuu muuse bil dambe si xukumo oo maalin walba nin ganacsada halka qabto oo dalka shidaalka boqor muuse muddadiisiiba ma dhamaanin weli lama gaarin 13 November ummadiina dagaal qaylo buuq ka kacay waxaas ololahaas socda maxaa loo jeedaa muddadii madaxweyne ma dhamaanin waxaan la qaylinaya waa maxay أنا وحن كل شيء هل رونا كل شيء حنشباب والله يا جماعة لكن هذا رونا كل شيء صدق ممكن نوفمبر حضو موسى أنتوا تيساس وسعتوا ودلك مدحوينا كنقضوا ودلك النبذوبو هذا وهدي على بليه هاي سدا بعض وقرطو هذا والله والله أنا مدحنا وشيغانين وضيني ما أنا وشيغانين سمعت كران بفكوا الرئيس دي بينا واه وحقاق بقر عثمان ومحمود aad iyo aad baad u mahadsan tahay wareysiga qiimaha badan iyo waqtiga qaaliga aad nasiisay daawadayaal waxa inta inoogu dhamaaday barnaamijkeeni la hadal horyaal oo toddobaadkan martii inoogu ahaa boqor Cismaan Maxamuud boqor aad iyo aad baad mahadsan tahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed